السلام عليكم. ما أنتوا عن برنامج كنا كورفيننا أستامها يسفن هاي كل قديسين يهين hablaha miisaankoodu saayidka yahay iyo kuwa uu khafiifka yahay yacni hablaha dhuuban iyo kuwa buuran inkastoo bulshooyinka Soomaalidu aanan lahayn habla si xad dhaaf ah buuran iyo kuwa si xad dhaaf ah dhuuban marka loo eego caalamka gabi ahaantiis xataa dadka qiimeeya bulshooyinku ay ku dareen dumarka ugu quruxda badan marka loo eego Afrika oo dhan si kastaba noqoto haddana maanta waxaan eegaynaa barnaamijkii hore aad u soo doorateen oo ahaa sifooyinka ay kula gedisan yihiin hablaha miisaankoodu saayidka yahay iyo kuwa khafiifka uu yahay inagoo isticmaalayna ereyga dhuuban iyo buuran. inta dhuuban waa mid caqli badan haday noqoto xaq doorashada iyo xukunka markay shay ama qof dooranayso ama xukumayso waxay ka eegtaa guudkiisa iyo gudihiisa yacni intay ishu aragto iyo qalbigaba sidoo kale marka wax lagu soo eedeeyo ha noqoto xaq qoyska ama dibadaba waxay isku difaacdaa si caqliyeysan iyadoo hadalkeeda iswaafajinaysa oo isku toosinaysa waxay isku difaacaysaana kala badh waa been laakiin boqolkiiba waxay eegi run maxaa yeelay way isku toostoosisay waxa iska hor imanayaan bay isbirinayaana kuma jiro halkayna tabuuran aqli gaaban tahay haday noqoto xagga doorashada iyo xukunkaba waxay wax ku doorataa ama ku xukuntaa iyadoo kaliya ka eegaysa guudkiisa oo aan ka eegin gudihiisa taasoo hadhow dhib uga iman karo sidoo kale marka wax lagu soo eedeeyo ha noqoto xagga qoyska ama dibadaba waxa la waxa sameysay ayay sheegtaa iyagoo aan isku toostoosinayn waxna ka saarin kadib ayay ku daraysaa hal beeno weyn ama marmarsiyo haba ku dartee ma xume sheekadu way isburinaysaa oo isma waafaqsana taasoo sababaysa in beenta lagu qabto kadib marka beenta lagu ogaado isla markiiba waxay bilowday in isku oydo taasoo sheegaysa inay fashilantay inta buurani way naxariis badan tahay haddaad shay si naxariis lagu codsato markiiba way ku fulinayaan sidoo kale hadday ku aragto adigoo dhib ku jira si degdeg ah ayay ku caawinaysaa xataa haddaanay waxba kula qaban karin waxaa laga yaabaa inay ku calaacasho waxay u naxariistaa ciday garanayso iyo cid aanay garanaynba halka inanta dhuuban ay ku yartahay naxariistu maxaa yeelay hadday badanaa istiraahdo cidda aanad garanayn caawi waxay isdhahaysaa armuu dhib kaaga yimaada armuu qorshe damacsan yahay waxa iyadu kaliya u naxariisataa ciday garanayso qura inanta burani waxay ku fiican tahay dhinaca hawsha iyo daryeelka wax kastoo loo diro sideeda ayay u qabataa iyadoo aan farmataabin ahayn mararka qaar howlo aan loo dirin ayay qabataa oo guriga ah inay guriga nadiifiso meel walba xaadho iyo wax kastaba oo aanay ka caajisayn mararka qaar waxa ay daryeeshaa carruurta oo ciyaarsiisaa halka inanta dhuubani qabato waxa loo diro oo qora waxaaba laga yaabaa inay intaa kala shaxaado oo ay kala badh ka tagto inanta dhuubani macquul maaha inaad khiyaanto maxaa yeelay marka horeba waxay kaa eegaysaa gudahaaga iyo guudkaaga hoosta iyo dibaddaba taasoo fududaynaysaa inaad waxaad tahay waxba ka qarsoonayn halka inanta buuran aanay kala saarayn ka khaayinka ah iyo ka daacadda ah maxaa yeelay waxay wax ka eegtaa guudka iyo dibadda iyadoo aan ka eegin gudihiisa taasoo bannaynaysa fursado in qalbiga xun khiyaamo inanta dhuubani waa mid dhiireen hadday noqoto in mar walba waxay xaq u leedahay in aanay ka dhiidhiyin iyo inay qof kasta qaladkiisa gacanta u saarto sidoo kale markay keligeed socoto ama ay marayso meel mugdiya waxay u socotaa si caadiya mana cabsato halka inanta burani aanan lahayn waxa dhiiranaana mar walba waxay ka tanaasushaa xaqeeda dadka qaladkoodana uma sheegto sidoo kale keli ma socon karto mana marto meelaha mugdiga ah aad baanay uga cabsataa
inanta dhuubani waa mid dareemayaal badan. waxaa laga yaabaa haddii aad ka dambayso 20 tallaabo in markiiba ay dareento inuu qof ka dambeeyo, gadaalna ay soo eegto. waa dad dareemayaashoodu aad u kacsan yihiin. sidoo kale waxay dareemi kartaa waxa qalbigaaga ku jira adoon xataa dareensiin, halka inanta buurani aan lahayn wax dareen saa'id ah. markaas leedahay wax dareensii, siday kula hadlayso waxaad u malaynaysaa inay ku fahantay, balse dub ayaad ka ogaan doontaa inaanay xataa marna sawran. haddaba ogsoonow, markastoo miisaanka uu kor u kaco waa markastoo caqligaaga hoos u dhaco. haddaba waxaad caqligaaga ku dhisi kartaa jimicsi. xataa haddaanu jidhkaagu awood u lahayn jimicsiga, ugu yaraan xadhkubad waad ciyaari kartaa. maxaa yeelay jimicsigu maskaxda iyo jidhkaba waa uu dhisaa. xataa markaad hawl maskaxeed aad qabanayso, haddii aad in yaro jimicsiya samayso, waxaa laga yaabaa in sidii hore maskaxdaadu ay ka soo jeed badato. sidoo kale waxaad maskaxdaad ku dhisi kartaa adigoo akhrisanaya buugaagta maskaxda kobciya, sida buugaagta taariikhaha hore, maadaama oo buugta taariikhaha hore ay maskaxda dib u celinayso, taasoo sababaysa in maskaxdu si degdeg ah u korto una baraarugto. buugta cilmi nafsiga maskaxda ayay koriyaan, maxaa yeelay waxay kugu laylinayaan inaad qofka wax uu sameeyey ama dareenka qalbiga ku jira aad ogaato. buugta xisaabaadku waxay ka mid yihiin waxyaabaha maskaxda kobciya, maadaama ay caan ku tahay in shay lagu siiyo shayna lagu yidhaahdo raadi, sida halxidhaalaha. haddaad inuun tahay dadka aflaanta daawada, waan ogahay waxaad daawataa aflaanta musalsalka, iska jooji oo inuun daawo aflaanta dabagalka iyo sirdoonka iyo sidoo kale garsoorka. kadib markaad intaas qaar ka mid aad samayso ama dhammaantood, waxaad noqonaysaa qof caqli ahaan iyo jidh ahaanba dhisan, ama sida Soomaalidu ay dhahdo lama helaan, maadaama labadiiba israacsatay. intaasina waxay iga heetalaan siinayay hablaha miisaankoodu saa'idka yahay. waxaana maaha wax buug laga qoray ama daraasaad sameeyey keliya, aniga waa aragtidayda, waa intii Ilaahay iga garasiiyey qalinkuna qoray. sidoo kale waad igu raaci kartaa, waana igu didi kartaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.